marka Soomaali baan lahaa waddankana u dhalanay waan ka muuqanaa baarlamaanka ayaan ka muuqanaa maxkamadaha ayaan ka muuqanaa oo wiilashaanada iyo gabdhaha ay fadhiyaan waxaan kaloo ka muuqanaa oo aan joognaa dowladda madaxweyne Uhuru Kenyatta uu hogaamiyo wiilashaanada waxay ka muuqdaan ciidamada ku jiraan marka waan fiicanahay dad hadda taariikh baan leenahay meesha aan ka imaanay egaan fiirino iyo hadda meesha aan joogno waxaan ana alxamdulilah hor baan u soconaa adigana garabaan ku noqonaynaa siyaasi uu iska dhib badan yahay. I was reading something last night and somebody said that if you want to make everybody happy, don't become a politician. But if you want to make everybody happy, go and sell ice cream. Well, I think if you sell ice cream, every time the guy gets a scoop, he leaves you when you're happy. But if you're a politician, you can never make people happy. Marka ummadda Soomaaliyeed caawa meeshan joogto oo matasho Soomaalida kale waddankan joogaan waan ku garab istaagaynaa waan ku hiilinaynaa ilaahay baan ku baryaynaa inuu xilka ilaahay kuu fududeeyo waa xil adag waa waddan burburay waa waddan raba in dib loo soo dhiso marka waxaan leenahay ilaahay ha kuu fududeeyo habeenii maalina ku garab taaganahay Soomaalida way dhib badan tahay Soomaalida waxay ku dhib badan tahay shay kasta adduunka Soomaalida qolo ka fiican ma laho waxaana ka hadlayaa experience. The last 3 years Soomaalida waddankan waxay fursad ii siiyeen inaan qaaraan gaarayo 800 milyan inaan guro anigoo ganacsada ii gurayin oo aan ku dhisayno kulliyada diinta masaajidyaha iyo madaarista. Soomaalida waa dad fiican waa dad dadaal badan waa dad shaqaysan waa dad midnimo qabo laakiin waxay qabaan cudur cancer la yiraahdo qabiilka waxaana la yaabaa marka dowladda aad magacaawday qofkii hore ii soo diray dowladdaada kabinetka wuxuu yar Soomaali oo shaqeeya BBC after 10 minutes wuxuu ii soo diray dowladdii wasiiradii iyo qabiiladooda uga bilaabay wuxuu yiri daarood idra la siiyey wuxuu sheegay daaroodka daraawiye badan way baray wuxuu ku soo dhameeyay 4.5 wax la dhaho. So I texted him back and I told him, what is the use of waxaad isoo dirtay maxaa tii horaba ma wuxuu waa in la ogaado qabiil kasta madaxweynahaas wax u qaybiyey waxaan rabnaa qof kasta oo madaxweynaha la shaqeeyo inuu noqdo wadani adiga waxaa lagu waxantaa inaad tahay wadani a nationalist inaad wadani tahayna waxaan dareemay maalinta xamar aan tegey waxyar iga raaliyaada waan soo dhameynaa maalinta hore xamar aan tegay oo igaad meeting aniga madaxweyne Uhuru Kenyatta aan tagnay waxayna ilaalinaya waxay ahayn ciidamadii amisom laakiin maalinta aanu kacanay calaamasaadkaada waxaan arkay wiilal Soomaali oo boolis oo ilaalinayeen
so qofka markuu yahay wadani markuu yahay nationalist qofka kale oo sectarian-ka ama qabiilka aniga waliba u mahad celinayo madaxweynayaasha ka horeeyeen madaxweyne xasan madaxweyne sheekh shariif iyo prime minister farabadna there were many and I hope you will retain my friend Ali Khaire. Ali Khaire, you know, was when he was working for the Norwegian Refugee Council, we used to have coffee at Java a number of times. So I hope the turnover of prime ministers in Somalia, I hope my good friend, the speaker, I wish he was here, the speaker Jawari, the turnover of the prime ministers and the government must be very stable. Marka, Mr. President, so waan soo dhaweynay wali garabaan ku nahay barina kollaba waxaad tagaysaa the IGAD summit on the refugee issue dadka Soomaaliyeedna garabaan wali u nahay waxaan sugaynaa maalintii wadankooda uu nabad noqdo dhaqaalahooda uu soo koro dhulkooda ay ku noqdaan and they make an impact on the economy. Waana ku sheegnay darbi aan dhisayna malaho darbi la sheegayay waxaan ku bedelnay hadda inaan xuduudada furno because we have found a serious committed partner in you. I want to say that. And in fact, those are not my words, those are the words of my friend and my president. We have found a committed friend, a committed leader, a serious partner in your presidency. And we will never shy away from that. ugu dambeyn waxaan rabnaa Soomaalida inaad madaxweynaha garab siisiin madaxweynaha garab siiya madaxweynaha la istaaga madaxweynaha yaa la xamanin madaxweynaha meelaha fadhi ku dirirka yaa lagu caylin madaxweynaha wuxuu u baahan yahay tala iyo in la garab istaago